السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام يا أصحابتي إيقو حيران جنال كداوان إسان وسيروق شيخ جنال وأنا ورسن شيخ محمد وحايد اللي هاي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو أدونك أدكجوكتان أدبا إذن سلام يا خيري بركة نور مدى الصوماليات ومدى إسلام كأه ميل كستو أدجوكتان قاصة أصحابتي إيقو حيران بهدر اليوتيوب ليدمانتين أدبا إذن سلام يا waxaan leeyahay saxaabtayda soo dhawaada insha Allah biidmillaahi raxmaan channelkayga hadda ka bacdi sidii hore ayaan ugu soo noqon doonaa waa channelkaygii ku soo dhawaada khayr iyo barakiyo nuur insha Allah barnaamijyadii hore uga socon jiray oo la yiri sayruuq inoo soo celi barnaamijkii ahaa kalsoonida naftaada kor u qaad barnaamijkii ahaa dulmi iyo digasho barnaamijkii ahaa naftaada waxa la jeceshahay walaalka la jeclo برنامج dadka u jeclaysteen runtii aan joojiyay laakiin oo aan ku bedelay walaal maxaan ku dhahdaa waxa naftaada kula talin lahayd walaalka kula talin barnaamijkaas oo ahaa markiisii hore ku dayashada qofka wanaagsan iyo faa'iidada ay leedahay insha Allah biidmillaahi raxmaan runtii barnaamijyo kale oo ay ka socon jiray waxa jiray channelkayga oo ahaa asna waalidka kala tagay iyo caruurtooda maxaa kala haysto dhibaatooyinka way iska badan yihiin Allah raxmaanka inoo saqiro maanta waxaan ka hadlayo social mediahu mar walbaba xaalad ba iska taagan cakiran meel ay u socotaan la garanaynin dad iska jahwareersan dada isleedahay ummadda Soomaaliyeed ilaahayga raxmaan aha qulubtooda ha isu soo duwo khayrkana ilaahayga raxmaan aha dushooda ha dhigo dalkeena Soomaaliyeed nabad Allah nooga dhigo khayr iyo barakana Allah na siiyo inta waxaan kaga gudbayaa bogaadintii iyo salaantii iyo barnaamijyadeeni oo aan dib u soo cusboonaysiinayo oo aan dib idinkugu xasuusinayo idinkugu sheegayo waxaan runtii maanta saakay arkay oo Facebook ka daawaday madaxweynaheenii hore khayr Allah siiyo Xasan Sheekh oo ka hadlayo carruurtii la qaaday ee la tiray loo qaaday ee la tiray iyo Itoobiya inta waa naga badan yihiin qoomiyada naga badan baa degan anagu shaqo ku lahayn qoomiyada anaga maanta garab nooga baahan ma jirto walow Soomaali iyo dadka joogo maxaan ku raahdaa Itoobiya mararka qaar ay isdagaalaan wax u soo gurmadana aysan helin gurmadkaas ay weysay ummadda Soomaaliyeed uma malaynayo in maanta loogu taageerayo ama lagu siinayo qolo kale intaas waxaan leeyahay bal hortu dadku ha fahmo taageeradu meeshay ka imaan karto waxay tahay taageeradu maxaa la isku taageeri karaa maxaa loo taageeri karaa taageeradu noocay tahay runtii waa waxyaalo badan falaqeyn badan bay u baahan tahay ka hadal badan bay u baahan tahay ka tashi badan bay u baahan tahay intaas waxaan kaga gudbayaa aniga ahaantaydii hadalkii aan dhihi lahaa dadkii taageerada u baahnaa waa ummadda Soomaaliyeed markii lala dagaalamayay dadkaasna wax taageero wax siiyo ma laha xitaa kuwa ay dhex joogaan baanan taageerin cid kale ba iska daayay inay taageerto waxaan ogsoonahay in badan inay ka dhacaysay maxaan ku raadaaye Itoobiya gudaheeda dagaalo lagu qaaday qoomiyadaha Soomaaliyeed qoomiyad walba meesha degan iyo qabiil walba meesha degan cid u soo gurmatay ma laha walaa kan Soomaaliga ah ee meesha joogaan u gurmanin ku kala warkiisa daay marka malayn maayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu u diraayo ciidan uu leeyahay Soomaaliya intay ka tagaan ha u tagaan halkaas waxa ka dhiciyaan dadka marka hadalka mala awaalka ah iyo malaynta aad ba looga fiican yahay intaas waa ka gudbayaa waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed markay qayliyaan ama cabaadaan ama ooyaan runtii gabar walba oo hooyo ah oo Soomaaliyeed qalbiga gariirayo waayo wiilasheenii oo kale walaashay baa dhashay ama inaadeertay baa dhashay ama habartay baa dhashay ama eedaday baa dhashay ama gabaraan wax u ahaa dhashay ama gabar wax ii ahaa dhashay waa ummad Soomaaliyeed oo isku xiran baana qabiil kasta ka soo jeed meesha doontid ka soo jeed gobolka rabtid ka soo jeed waxa doontid ahaw laakiin gabdhaha Soomaaliyeed iyo ummadan Soomaaliyeed giddi waxbay isu yihiin meel bay qaraabo ka yihiin meel bay iska soo galaan marka waxaan leeyahay
xasan sheekh madaxweyne horaa tahay xil baad soo qabatay ummaddan hadday ku sii rabaan way ku daysan lahaayeen laakiin inta lagaa qaaday xilkii oo lagaa dejiyey baa waxaa la saaray maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigiisii uu dhammaaday doorashuu galayaa sidaadii oo kale kaas wuxuu rabaa meel uu ku wareejiyo inuu helo iga tag oo kursiga ka deg waa kuu dhammaaday xilkaaga adigaba kumaa tegin isagana taas ku tegi maayo laakiin muxuu ku tegayaa wuxuu ku tegayaa xilkiisii markuu dhammaaday doorasho in la galo madaxweyne uu ku wareejiyona uu goobtii soo istaago uu imaado madaxweyne uu ku wareejiyo waa inuu goobtii imaado oo uu soo istaago markaas uu kugu wareejinayaa waana ka degayaa xilka meeshuu ka imaadayna waa aadayaa ama dalkiisa Soomaaliya dib ha ugu noolaado ama meeshuu ka imaadaba ha ku noqdo taas isaga ikhtiyaar u leh intaas waxaan leeyahay madaxweynihii maxamed cabdullaahi farmaajo ee xilka hadda hayo ee ah inuu ku simo qofkii bedeli lahaa isaga qof qaar qaba Allah ka dhigo hooyooyinka marka xasan sheekh waxaa heli kartaa in aad hooyooyinka Soomaaliyeed meesha aad ka kicinaysid inaad dawladdaada hoos inta ula hadashay aad dhahdid war waxaasan maqalnay maxaa ka jiro because siyaasaddaadu waxay u baahan tahay inaad dejisid laakiin siyaasad mikrafoon lala taagan yahay hadday ka noqoto indhihii bulshada isku jeedinaysaa nin walba ku soo qabsanaya nin walba hadalkaaga beenaynayo taas intaysa dhicin marka ka hortag samay si uu hadalkaaga u hirgalo ama run u noqdo sida hadalkaaga loo qaato oo loo dhaho xasan sheekh baa allay lahayd baashan ka soo baaraan dagay oo soo fiiriyay oo waxay tahay noo soo akhriyay laakiin hadalaad hubsanin hadda inta la boodo aad dhahdid dawladdu way kaxaysay caruurtii hooyooyinkii waa oynayaan waa barooranayaan hooyooyinkii waa qaylinayaan hooyooyinkii wadooyinka la soo tubo hooyooyinkii maskaxdii iyo qalbigii ay caruurtii yareed ku cilcishan lahayd laga jaam gareeyo taasi siyaasad ma noqonayso siyaasadaas askariga wuu baxayaa wadamo kale la geenayaa gabar walaashay oo dalka Soomaaliya inta la joogay shaqeynaysay oo dawladda Soomaaliya u shaqeynaysay meel alla meeshii la rabana la geenayay because askariyada ahayd meel alla meeshii la rabana la geenayay dad baa la qaaday oo maxaan ku yiraahdaa wadamo kale la geeyay oo ka soo dagaalamay waa jiraan dad soo nabad noqday waa jiraan dadaan soo noqon waa jiraan laakiin caruur la qaaday oo shalay markii la qaaday hooyadii ay garab taagnayd oo ay ku sabood gareynaysa inuu wiilkeeda raaco maanta in la yiraahdo kaale qayliyo banaanka istaag adigu waa ku sharaf darro hooyada Soomaaliyeed laftinkeedu waa u sharaf darro inkastoo xanuun uu jiro xanuunka hooyanimo kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa hubsiyo hal baa la siistaa waxaan adigu dawlad baa ka qaaday shakhsi kaama qaadin dawladana intee ku jirto hal qabiil ma aha dawladdu laba qabiil ma aha dawladda saddex qabiil ma aha dawladda waa ka badan yihiin waa qowmiyad ummad Soomaaliyeed oo dhan dawladdaas ku jirto ilmahaasna waa Soomaali oo dhan dhashay maalintuu askari noqday hooyo walba Soomaaliyeed hooyo u noqotay wiilkaaga hooyo walba Soomaaliyeed mas'uulka ah wiilkaaga hooyo walba Soomaaliyeed wiilkaada u duceynayso ogsoonow dawladdaas maalintii uu wiilkaaga askari u noqdo dalkiisa inuu difaaco qari qaato uu galay bay wuxuu noqday ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan inay wiilkaada kula dhaleen kaas waa waxa aan anaga dhan u wada qaylinano u damqanayno dalkii uu difaacaya hooyo indha la'aan uu gacanta qabanaya hooyo biyo la'aan uu biyo siinaya hooyo rafaadsan uu qaadaya hooyo xanuunsan uu intuu xambaari gaari saarayo dhakhtar geynaya waxaasoo dhan adigay ku imaanayaan marka maskaxdii intii ku hartay ku korsan lahayd oo bariiska ugu walaaqan lahayd oo cunto ku siisan lahayd oo iskuulkoodii ugu dirsan lahayd yaan lagaa qasin siyaasadda way soo afjarmaysaa waxay ku soo afjarmaysaa shalay waa la is haystay maxaa la isku haystay dani baa diiday Axmed Madow baa diiday
hebelo waa diiday hebel kalaa diiday mucaarad baan nahay muxaafid baan nahay musharax baan nahay gudoomiyaan nahay waxaasoo dhan waa soo dhamaatay meel baa la isugu tagay waa laga heshiiyey raggu qowl baa xiro naagtuna meher baa xiro raggu maysa qowl lahayn maxaa idinku dhacay shalay ballantii aa qaadeen aawe shalay heshiiskii la galay aawe xaggee loo kala furfurtay ma gaari xumaaday baa tihiin maxaa idinku dhacay soo dalkan horumar uma rabtaan inuu horey u socdo ma rabtaan oo riixdaan mise meeshii shalay laga soo noqday in lagu sii noqdon baa la rabaa wixii shalayba waa sheegi naqaanaaye waxa soo socda inaan ka fakarna maxaa noo diiday ya waddamadan aan joogno ee qurbaha ah ee waa dhul qurux badan laakiin quruxda maxay ku gaareen dadkan dad qofkan ilaahaygii raxmaan ahaa markaad cadli taqaanidood cadaalad ah taqaanidood wax taqaanid ilaahay garabkaagu gelayaa dadkan qofka maskiinka ah iyo qofka taajirka ahay simeen oo meel wada dhigeen oo hal meel ka soo wada kacdheheen kaan shaqaysan karin iyo kii shaqaysanay isku meel bay taagan yihiin ma fahantay waxaa laga yaabaa nin hanti iyo adduunyo haysto inuu adigu korkaaga guri ka dhisto inuu damco oo uuba ku fiirinin laakiin dhulkan waxaad arkaysaa qof taajir ah oo qof masaakiina kaalmaynayo ama waddo goysiinayo ama gacanta qabanayo ama wax siinayo marka cadli baa lagaaga baahan yahay madaxweyne horaa tahay waxbaad soo martay waa lagu rabaa dadku waa ku rabaan laakiin ha isku dirin siyaasadaadu ha gadanto siyaasadaadu ha la raadiyo siyaasad la raadiyo siyaasadaadu ha noqoto ee siyaasad aad hor boodaysay siyaasadaada noqonin hadda fiiri cabdiqaasim salaad xasan ninkaas runtii ilaahayga raxmaan ahaa ha barakeeyo ha sharfo inta aad ninaan madaxweynenimadiisa u jeclaabo ahayd maalintii ugu horreysay ee madaxweyne laga dhigtay abtuna waan jeclaan lahaa ninkaas inuu dib inta isu soo sharaxo Soomaaliya gacanta ku qabto waayo waa nin diin iyo ka muuqato akhlaaq waa nin ay ka muuqato sharaf waa nin ay ka muuqato cizi iyo karaamo ilaahay siiye jecel inuu dawladdiisaas hadday xun tahayna uu toosiyo hadday fiican tahayna inuu dhaho haye waad fiican tahay horay u soco waa sida ciyaalkaaga waa sida adigu ciyaalkaaga guriga jooga aad ula dhaqmi lahayd baa laga rabaa inaad dawladda Soomaaliya ula dhaqantid wixii xunna ka celi wixii fiicanna ku taageer laakiin lugahan ku dhaganaani ma soconayso ma dhaqaaqayso mid baa soo xirantay meel kalaan furi wada la soo awdi wada kalaan ooda ka jiidi intee loo socdaa intee cimrigi dhamaa aqligi dhamaa caafimaadki dhamaa corona hawadii taagan ilaahowna badbaadi baa lagu jiraa miyaadan isdhehayninba warkani waa lagaa daba keenayaaye niihow iska aamu bisinka iyo tabaaraga waa xaggee waa la sii socdaa xaggee lagu socdaa waxaa maqlaya wiilashii oo soo hadlay khayr allaha siiyo walaashay Barliin iyo Cimraan oo inta badan aan runtii janalkooda aan aad u daawado waxyaalaha ugu badan aan ka daawado yacnaha dadka inta badan ii soo dhaca marka aan daawado wajanalo badan laakiin waa dadka mar walba aan daawado runtii waxaan leeyahay dadkii waad maqlayseen wiilash ayaga miyaan beenaysanaa oo nin magaaladii idinla dhex taagan miyaad rumaysanaysaan hooyooyinow dumarka Soomaaliyeedow dalka idinku idiin baahan yahay wadamadan dumarka waxa loo siiyo horumarinta ugu horeysa loo siinayo dhulkooday u dagaalameen xuquuqdoodii iyo xaqoodii bay dhacsadeen qabiil iyo qabyaalad bay ka fogaadeen marka xaqaaga dhacso xuquuqdaada raadso si dawladda Soomaaliya ay adiga bari hormuudkaaga dhigto dadkan wada qaylinayadana la yiraahdo war dumarka xuquuqdoodii xaqooda iska ilaaliya waxaa laga yaabaa labada naagooda uu qabo midnaba inuu cadaalad u sameeyo kaasa marka raba inuu ku maamulo cadaalad adiga ku siiyo waliga cadaalad arki maysid balaayo baa faraha lala sii galaya marka Allah raxmaanka ah hana siiyo khayr iyo barakiyo nur
maskaxdeena iyo qalbigeennana mid dawowdo ilaahay ha nooga dhigo waxaa idinkaga tegaya aniga oo ah warsan sheekh maxamed janalkaad daawanaysaana uu yahay sayruuq sheekh janal waxaan idin leeyahay asxaabay sabskaraabka iyo leega iyo sheerka waa xaggiina insha allah biidni illaahi raxmaan daawashadu waxay faa'iido leedahay marka la qaato laakiin daawasho lagu daawaday oo kumanaan views oo ku hesho waxaa kaaga fiican kelmad lagaa qaato qurux badanna waa inoo barnaamijyadeennii dambe iyo isbuuca inagu soo aadan biidni illaahi raxmaan aad baa idin salaamaya السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.